saaxiibayaal maanta waxaan la wadaagayaa safar aan caadi ahayn safar aan diyaarado ka soo laaban maraakiibna aan ka soo noqonin waa halka xitaa Google Maps ku iska leexiyo dabcan waan tegaynaa Bermuda inagoo dusheeda haabi doono maya ma aha meel dul sabeyn kara oo maxaa dhacay waa uun shooladaha qaar inaadan kulaalin aan aadno inkastoo aynan hubin ka soo noqodkeeda haddana waan khamaaraynaa let's get it. The Bermuda Triangle, an ocean full. waa maxay Bermuda saddexda Bermuda waa ku yaala badweynta Atlantiga inta u dhaxaysa Miami, Bermuda iyo Puerto Rico waa halkii weedhi caanka ahayd meel aan la garan marna looma gacan haadiyo halkan waxaa lagu tilmaamaa meel qarsoodi ah diyaarada ayay cuntay maraakiibna way qoosisay oo gunta hoose ayay ula daadegtay dadna warkooda daa waxaa kale oo loo yaqaanaa Bermuda Triangle waa meel cabsi iyo aab isqabsanaya meel dadka qaar yiraahdaan cabsi weeye waa meel ay dadku jecel yihiin si ay ka cabsadaan Bermuda Triangle began on the 5th of December 1945 when a group of 5 aircraft mysteriously disappeared. Bermuda waxay taariikhdeeda ay ku shaambaleysay inaan loo soo dhawaan karin waa baddeeda ka baxay waxay leexsatay maraakiib diyaarado doonyo iyo dadba intuu dam ay ka siisay waana mid ka mid ah goobaha aan hal xilaaleeda ilaa hadda la soo furin si kastay dunidu horumarkeeda samadaas ay isu shareertay hagaag aan si dhow kaaga waramo sheekooyinkeeda 5 diyaaradood oo dagaal ah ayaa ka kacay Florida waxayna u baxeen tababar iyagoo samada dul haabaya tababarkoodana u socdo ayay galeen aagga Bermuda intaas kadib lama arag meel ay January bay dhigeen hal qof kama aan u soo noqon sidaas ayaana lagu waayay oo waa sidii geel ceel galay midna lama soo saarin inkastoo hadaladoodii u dambeeyay uu ahaa waxaan u soconaa jihadii saxda ahayd iyo warmaye kambaska uu wareersan yahay oo inaga wareeray waxaa la yaabaa 14 nin ayaa saarnaa iyo diyaaradahooda waxaa la diray diyaarad badbaadin ah taasina way luntay sidii xoolihii oo kale. USS Cyprus 1918 mid ka mid ah maraakiibtii ugu weynaa ee Mareykanku lahaa waqtigaas waa 1918 waxaa saarnaa 309 qof wariyo caal warkooda waxay dadku ugu wardambeysay markii ay dhaafeen magaalada Barbados intaa kadib wax war ah lagama helin ma biyaa galay oo weerar baa dhacay mise Bermuda meel ku hubsatay oo liqday dabcan Bermuda agaag aragtida dadweynaha ay fikradu ka qabaan maxay tahay qaar baa aaminsan in Bermuda ay leedahay magic fields inay leedahay birlab soo jiidanaysa wax walba qaarna waxay yiraahdaan halkaas waxaa jooga makhluuq ka yimid meerayaal kale iyagoo u soo tusaale qaata aliens aan isweydiiyey aliens kuma wax jira halka kuwa kale ay yiraahdaan oo ay sheegaan in meeshaasi ay leedahay albaab laba adduun aniguna waxaan leeyahay waa meel aadan tagin adigoo aan soo macsalaamin xaafadiina waxa kale oo jira oo halkaas ka jira Emilo si lama filaan ah isu bedesha hirar waaweyn iyo mararka qaar naxdin u eg sheeko waxa su'aal iska weydiinayaa Bermuda waxaa ka jira warkaaga beena badani run bay ka sheegtaa waxa jira warar la iska yiri buugaag laga qoray filmaan laga sameeyay laakiin su'aashu waa ma jirtaa wax run ah oo ku qarsoon qaar baa yiraahda waa uun shilal iska dhacaya laakiin haddii ay yihiin shilal caadi ah sidee uu Google Earth ugu darsaday biwaanid waa been la bumbuuniyey laakiin yaa og qaar baa yiraahda diyaaradaha luntaa waxay galaan meel kale universe kale ama caalam kale anigu waxaan leeyahay haddii ay halkaas ay tagaan Facebook iyo TikTok waxay uga aamusan yihiin aynu ka soo gudubno waxaa jiray in la yiraahdo Charles Perlis oo qoray buug caan noqday waayihii dambe wuxuu yiri Bermuda ma aha meel iska caadi ah isagoo oo uu ugu yeeray gasharka aniguna waxaan leeyahay waa meesha ay diyaaraddu ka hesho one way ticket oo aan ritaan lahayn
sanadkii 1978 ayaa la waayay diyaarad halka beeloodkii waday uu ahaa mid aad ugu xariifa diyaaradda markii uu halkaas galay last message-kiisii wuxuu ahaa waxaan ku jirnaa nuur aan la garanaynin aniguna waxaan is idhi nuurka jannada buu galay mise uu free wifi buu helay taanaaska kaftan waxaanad aqoon laguma ciyaara Bermuda waa meesha sheekooyinkaas u dhalatay mararka qaar hadal badan iyo run yar ay dadku ku mashquulaan goobtaasina waxay leedahay su'aalo iyo hal xidhaale aan weli la furin ugu dambeyn aan isku soo wada duuba waxaan ku leeyahay xanoqon diyaaradii lagu magacaabay Flight 19 xanoqon markabkii aan dib ugu noqon laakiin haddii aad weligaa u safartid Bermuda ha ilaawin inaad tiraahdo goodbye laakiin ha filan inaad halo mar kale soo tiraahdo badaada lahayn lama gala Bermuda waa meeshaas isku soo wada duub sidee bay kula tahay Bermuda madhabba mise waa been la naashnaashay oo la qurxiyay mise labadaba qaybta faalada ku soo lar ogaalkaaga salaam